aniga waxaan leeyahay arrintan maraykanku wada ciyaar waay maraykan wuxuu burburiyey Iraq Saddam Hussein buu wuxuu yiri wuxuu haystaa nuclear wixii yaraa uu haystuu ka burburiyey markuu burburiyey haddana wuu ka hari waayey ilaa ay gurigiisa ugu tagay ilaa Saddam iyo dawladiisa uu burburiyey maraykan carab wuu ugu talagalay inay burburto wuxuu lugta u qabanaya Israa'iil hadda Iran buu aaday Iran أنا waxaan ku leeyahay Iran Iraq sad uga soo kale Iran ma Iran is not a joke Middle East waxaan leeyahay baga waa idin ku fiican tahay xalay in la idin qaraaco Burj Khalifa iyo bootadii Middle East in la qaraaco gacan baan ku siinaa Iran maxaa yeelay idab darodooda zaid noqotay Somaliland waxaan leeyahay Burj Khalifa xalay wuxuu ku dhacay ku cilmi qaado Somaliland barbaray Burj Khalifa xalay waxa ku dhacay kilida laga tuugtay guriyaha kulli dheeraa madaxa laga mudhufan inay kiliyaha lagu dhuftay madaxana way dhimantay marka barbaray waxaan ku leeyahay xalay waad seexan weyso waan maqlay cabaadkaada marka waxaad yeelay adigu naftaada naftaada laciifka u turo oo Soomaalina ha gubin adnaha isgubin aqlina ma haysid aqliga Allah ku soo celi mid ayatullah soomaho ayatullah haduu dhintay isbeer baad baa yaal wiilkiisa haduu dhintay isbeer baad Iran waxa waa ku tala gashay jeneraal haduu dhinto 10 isbeer baad taal oo jeneraal ayatullah haduu dhinto 10 isbeer baad oo ayatullah taal meeshaas iyada waxaan u maleynayaa third world war ka dhici doono America waa la taliyay ciidamadiisa la taliyay meeshaas waan ku jabeynaa ha gelin baa la yiri ninkan khaatimo xuma haysto meesha ku khaatimo beelay waxaan leeyahay marka aniga carabay walwaad aragta xalay kalimaad saxan weyn xalay kali wuxuu ku dhacay hurdawaad weyseen bal 2 bilood 3 bilood haday idinku socoto ka waran waxaad yeeshaan bal isu imaado aqligiina xumo qamiiska cad qabo isku dardarsado Iran u tago u gurguurto sabeen ku xira xalay waan maqlay durbo sabeen baad xirteen waxaad dhahdeen dhulkanaga in laga duulo ma ogolin taas Iran kuma filno annagana naguma filno Burj Khalifa ayaa weligeed hal madfac lagu dhufan weligaa ma ku fikirtay Burj Khalifa ma aha 7 Burj Khalifa la gubi ha gubato wax cuntay waxay nuugtaba ha ku weyso ha lagu kala taga meesha haddii kale ahaan dawlado adduunyada ku nool oo macquul oo tashanayo oo macquul noqda haday noqon weyso Soomaaliya meeshaad ka gashaan bay ka gali Iran shacabka Somaliland waxaan leeyahay Burj Khalifa horta weligiin ma maqashan Burj Khalifa waa dabaq carab ay ku faanto oo u dheer kilida bidixda lagu dhuftay inta kilida midagta idinka aan la idinku dhufanin hadda tashada Somaliland ha ku cilmi qaadato Burj Khalifa nabarka xalay ku dhacay Kuwait xalay wuxuu ku dhacay Imaaraat xalay wuxuu ku dhacay berbera oo 45 sano ka hor siyaad bar xaqid u dambeysay oo wali wasaqda ay taal ha isku gubinaya adduunyada qurquruxda badneeda la gubaya watis berbera marka waxaad yeeshaan idorow diinta waan ka baxnay iyo calan Israa'iil baa dhunkanayna waxa aad kugu ma jirto dantaada waxay ku jirtaa xuutiyiintan 4 talaabo ku jirto madfaceeda iska ilaali adu untasho Soomaali waxa u tarinay adu dantaada u tasho wabillahi tawfiiq